السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channelka markale videoga maanta waxaan kaga sii hadlaynaa mawduucii narcissism. maantana waxay ku saabsan tahay narcissistuhu wax ma jeclaan karaa. wuxuu doona ha ahaado jacaylkaas haduu yahay jacayl lamaane iyo jacayl haduu yahay bini'aadantinimo caadi ah oo kale ama saaxiibtinimo ha ahaado wuxuu doona ha ahaado ma karaan inay jeclaadaan dadkaas wax miyay awoodaan inay jeclaadaan. saan su'aasha uga jawaabo waxaan horta dhahayaa narcissist dadka la dhaho waa in la ogaado waxay yihiin. narcissistic traits qof haysta oo xoogaa astaamo yar yar oo narcissistic lagu arki karo waa gooni, laakiin qofkii narcissistic personality disorder haysta oo list dheer oo 1 2 3 4 5 ilaa 9 la gaarsiiyo ilaa 10 meelaha qaarkood la gaarsiiyo 5 kamid haduu ka soo baxo astaamahaas oo uu leeyahay then waxa loo badayaa inuu narcissistic. haduu marka qof iska caadi ah yahay laakiin isla baxsan oo isla weyn oo xoogaa isla in la qaado u jecelo wuu awoodi karaa inuu wax jeclaado anagoo dhan baa xoogaa wax yar oo narcissistic traits iska wada haysana bini'aadamka, laakiin haduu full blown narcissistic personality disorder hayso then jawaabta gaaban waxa weeyaan wax ma jeclaan karo. sababta ugu wacan oo wax u jeclaan karin waa jawaabta dheer waxa waaye jawaabta dheerna su'aal baan kaga jawaabay. qofku wuxuu uusan haysan can you offer wax aadan haysan qof kale ma siin kartaa? waamay haddii aad tabar daran tahay qof kale wax ma u qaadi kartaa, ma wax maali kartaa? waamay wax adiga ka maqan qof kale ma siin kartid. simply qof ruuxdiisii iyo gudihiisii iyo qalbigiisii ay banaan tahay waa empty meel banaan ayuu haystaa. meesha banaan markaan leeyahay waxa uga jeedaa qof asaga iska aaminsan isla dakhsi iskala yar runta markii la dhaho wuxuu na tusaya maaha. runta marka la eego dakhsi wuu iskala yar yahay, runta marka la eego kalsooni ma qabo, runta marka la eego wuxuu aaminsan yahay inuu wax liitay u dhamaatay yahay, runta marka la eego naxariis iyo jacayl iyo maxaan ku dhahay wanaag inuu u qalmo ma aaminsana. saas awgeed qof kale ma siin karo. marka wuxuu dadka kale silingaha u suranaya videoyadeeda hore dib ugu noqdo oo uu tubada u suranaya waxa weeyaan in meeshaas ka maqal loo buuxiyo. marka qof adiga ka raadinaya inaa wax u buuxisid sidee uu ku siinaya? waa kuma siin karo. taas waa ta koowaad. ta labaadna waxa weeyaan sababta kale oo uusan jacayl u awoodin qofkaas waxa waaye ama uusan u sameyn karin inuu ku siiyo waxa weeyaan jacaylku wuxuu qof marka jacayl tusaysid, raxmad tusaysid, wanaag tusaysid waxa weeyaan in aad isu furtid soma inaad isu furtid oo qalbigaaga u furtid oo wada u dhawaansho aad muujisid oo maxaan ku radaa kalsooni aad muujisid. waxaas ma sameyn karo qofkaasi waayo wuxuu ka baqayaa runtiisa inaad ogaatid runtiisa inaad ogaatid buu ka baqayaa. runtiisana maxay tahay? qof waxba yahay buu isla yahay, wax uu adigu ku afargalayo qof aan haysanin buu isla yahay, wuxuu isla yahay kalsooni ma haysto, wuxuu isla yahay qof liita oo ay u dhamaatay buu isla yahay. deep down realitygaas buu marka diidayaa in aad fahantid laba qof oo kasta especially lamaanaha dadka dee ilaahay waa qur'aankiisa ku yiri idinkuna waxa u tihiin dhar iyaguna dhar bay yihiin. marka qof aad ka filaysid inaad dhar u noqotid waa inuu isu kaasoo bandhigi karaa soma isu kaasoo qaawin karaa figuratively iyo literally si dhaba iyo si kalaba. marka qofkii haddii uusan qalbigiisii soo qaawin karin gudihiisii uusan soo qaawin karin oo uu ka baqayo waxaad ugu tagi doontid dee ma ku tusayo. for two reasons ma awoodo inuu qofku ku jeclaado. waa wax ka maqan asaga qofkan, wax ka maqan qof kale ma siin kartid. waa laba wuxuu ka baqayaa kalsooni ilan ma jirtee adigana kuma kalsoona, naftiisana kuma kalsoona. wuxuu ka baqayaa hadduu isu kaa furo ilan jacaylku iyo xiriirku waa inay jirtaa in la is aaminsan yahay, la isku kalsoon yahay, la isku furan yahay, calool furan yahay. marka haddii ay maato calool furnaantaas wuxuu ka baqayaa inaad gudihiisa sidoo actually dareemaya sidoo iska aaminsan naftiisa in aad ogaatid asagoo saas awgeed taas ilaalinaya sirtiisaas asagoo ilaashanaya darbigooda ka dhexdhisaya. saa awgeed runtii jacayl ma awoodo, laakiin wuxuu awoodaa mid fayga oo been oo maxaan ku radaa ku meel gaar inuu ku tuso intuu dantiisa ka gaarayo, inuu ku tuso si uu wax ugu fulaan, inuu ku tuso mid been oo jilitaan
يا بو أبودا إنه تسميه لكن wax sii soconay ma wax soo afjarmaya way ma karo daacad kama video ma inta san kusoo gabagabeynaa insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaad wuxuun kala dhex baxdeen oo aan su'aashii kaga jawaabay ahayd miyuu jeclaan karaa narcissist waxaan idin rajaynayaa inta video kan oo kala kulmi doono farxad iyo bashbash iyo barwaaqo. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.